بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله إيا برامجكي طبدا أريدو كوها إنه وحا كمدا نتياهو أو شاعيي إن أي تشرتو كلا أركتي دوانا شاو نحيسا إساقا إيا ترام لكن وحو شاقي إنو سيوادي دونه دقالada ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ku andacooday in ay jug xooggan gaarsiiyeen Iiraan ayna ka hor istaageen inay samaysato hub nuclear madaxweyne ku xigeenka Mareykanka iyo Netanyahu oo hadalla adag isku dhaafsaday wadahadal telefoonka caawa ay ku yeesheen madaxweynaha Iiraan oo isna ka hadlay heshiiska isfahamka ee ay la gaareen Mareykanka warbaahinta Israa'iil oo shaacisay caawa in weerar gantaalaha lagu soo qaaday deegaanada waqooyiga Israa'iil ururka Xisbullah oo digniin adag u jeediyay Israa'iil mid ka mid ah diyaaradaha duqeymaha istiraatiijiga geysta ee Mareykanka oo burburtay sheekada ugu dambeysay barnaamijka idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika waxaa lagu qabtay nin tahriibinayay hangaralayaal ama dabaqallo waxay tahay sababto sheeko la yaab leh ayaan idinkaga haynaa amuurtan dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka Suudaan iyadoo dagaalo culus ay socdaan ayaa dhinaca kale waxaa sii kordhaysa tirada qasaaraha soo gaaraya dadka rayidka iyadoo lagu soo waramayo in dhibaatada ugu weyn ay ka dhalanayso weerarada lagu qaadayo goobaha dadka rayidka ay degan yihiin qaramada midoobay ayaa maanta shaaca ka qaaday in colaadda ka socota Suudaan ay isku bedeshay isku darka dhimasho fara badan oo ay sababeen weeraro diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee droniska iyo tacadiyo galmo oo baahsan iyadoo la diiwaan geliyay dhimashada in ka badan 1,000 qof oo rayida shantii bilood ee ugu horeysay sanadka 2026 madaxa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha Volker Turk ayaa golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay shir ay ku yeesheen magaalada Geneva waxa uu ka sheegay in weerarada dronisko ay si weyn u kordheen tan iyo bilowgii sanadkan Suudaan colaadda argagaxa leh ayaa sii fidaysa oo sii xoogaysatay waxaana lagu garan karaa koror aad u weyn oo ku yimid isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dagaalka ayuu yiri Victor Turk sida uu sheegay xafiiska wuxuu diiwaan geliyay dhimashada in ka badan 1,000 qof oo rayid ah intii u dhaxaysay January ilaa iyo May 2025 dadkaasi oo ku dhintay weerar loo adeegsaday diyaaradaha droniska Turk ayaa sidoo kale muujiyay walaac weyn oo ku saabsan kororka kuufsiyada iyo tacadiyada kale ee galme ee ka dhacaya goobaha colaadda isagoo ku nuuxnuuxsaday in xadgudubyadan ay si baahsan uga jiraan qaybo badan oo ka mid ah dalka dagaalka Suudaan oo bilowday bishii Abriil 2023 kana dhex qarxay ciidamada dawladda iyo kooxda RSF ee gurmadka degdega ah ayaa hadda galay sanadkii afraad colaadan ayaa sababtay dhimashada 10,000 oo qof iyadoo qiyaas qaar ay sheegayaan in tirada ka badan 200,000 oo dhimasho ah in la xaqiijiyay sidoo kale malaayiin qof ayaa ku barakacay gudaha iyo dibadda dalka halka macaluul ay ku fiday qaybo ka mid ah gobolada Darfur iyo Kordofan qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka ayaa marar badan ka digay si xumaanshaha xaaladda bini'aadantinimo ee Suudaan iyagoo ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ah lana joojiyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha wahagaag warkaas halka aynu kaga gudubno xagga Afrika intaynu ka tilowno aynu u weecanno dhanka iyo bariga dhexe inkastoo lagu dhawaaqay xabadujin iyo heshiis haddana xaaladda ka dhex aloosan Israa'iil iyo Xisbullah wali cirka ayay ku shareeran tahay inkastoo dagaalo toos ah aysan dhicin laakiin Israa'iil ayaa la sheegayaa duqeymo inay geysatay
haddaba war weyn ayaa waxa uu ka soo baxay ururka xisbullah waxaana ay sheegeen inay soo dhoweynayaan isafgaradka ay ku dhawaaqeen iiraan iyo maraykanka ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda gobolka waxaana ururka uu ku booriyey Israa'iil in ay si buuxda u ixtiraamto qodobada heshiiska war-saxaafadeed ay baahisay wakaaladda wararka Lubnaan ee magaceeda loo soo gaabiyo NNA ayaa lagu sheegay in xisbullah aysan fulin wax weerar militari ah oo ka dhan ah ciidamada Israa'iil tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska hadalkan ayaa yimid xilli boqolaal qoys oo reer Lubnaan ah ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan deegaanadooda ku yaala koonfurta Lubnaan xisbullah ayaa ammaantay doorka Iiraan ee ku aadan ku darista arrinta Lubnaan ee heshiiska xabad joojinta la filayo in lagu saxiixo magaalada Geneva ee dalka Switzerland maalinta Jimcaha kooxdu waxay sheegtay in ku darista Lubnaan ay muujinayso sida Iiraan ay uga go'an tahay joojinta dagaalka iyo ilaalinta madax-bannaanida iyo xuquuqda shacabka Lubnaan geesta kale afayeenka wasaaradda amuuraha dibadda ee waddanka Iiraan Ismaaciil Bagai ayaa sheegay in Lubnaan ay qayb muhiim ka tahay heshiiska isagoo carabka ku adkeeyay in qoraalka isafgaradka lagu xusay Lubnaan dhowr jeer isla markaasna uu dhigayo joojinta dagaalada dhammaan jihooyinka iyo ixtiraamka madax-bannaanida dalkaasi si kastaba ha ahaatee ciidamada Israa'iil ayaa maanta weeraro iyo duqeymo ka fuliyey dhowr tuulo oo ku yaala koonfurta Lubnaan xisbullah ayaa cambaaraysay falalkaasi iyadoo ku tilmaamtay xadgudubyo ka dhan ah heshiiska la gaaray kooxdu waxay ku adkaysatay inay sii wadi doonto difaaca dhulka Lubnaan ilaa ciidamada Israa'iil ay si buuxda uga baxaan dalka isla markaasna la sii daayo maxaabiista Lubnaan ee ku jira xabsiyada Israa'iil war kale oo hadda soo dhacay telefishinka Israa'iil laga leeyahay ee kanaal 12 ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirka Israa'iil ay qabteen gantaallo lagu arkay hawada magaalooyinka Metula iyo Kiryat Shmona ee waqooyiga Israa'iil telefishinka Al Jazeera ayaa soo sheegay in madaafiicda Israa'iil ay 3 magaalo oo ku yaala buuraha Ali Altar ay ku dhaceen gaar ahaan gobolka Nabatiya waana duqeyntii Israa'iil maanta ay geysatay ilaa iyo hadda ma jiraan war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Israa'iil iyo sidoo kale ururka Xisbullah oo ku aadan xaaladahan imika soo kordhay heshiiska Iiraan iyo Maraykanka dhanka Iiraan aynu ka hormarnay madaxweynaha waddanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska ay la gaareen Maraykanka waxaana uu ku tilmaamay isafgaradkaasi in uu yahay tilaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka joojinta dagaalka iyo bilaabista wadahadallo dhanka siyaasadda ah Pezeshkian ayaa sheegay in heshiiska la gaaray uu faro u noqon karo yareynta xiisadaha gobolka iyo abuurista jawi ku habboon wadaxaajoodyo dheeraad ah oo lagu xalilo khilaafaadka taagan si kastaba ahaatee madaxweynaha Iiraan ayaa carabka ku adkeeyay in aan weli la gaarin heshiiskama dambaysa isla markaasna wadaxaajoodyada iyo dadaalada diblomaasiyadeed ay sii socdaan wuxuu xusay in isafgaradka hadda jira uu yahay bilow wanaagsan oo horseedi kara xal waara haddii dhinacyada ay ka go'an tahay in la ilaaliyo qodobada lagu heshiiyey hadalka madaxweynaha Iiraan ayaa imaanaya xilli gobolka bariga dhexe ee wajahayo xiisada amni iyo kuwa siyaasadeed iyadoo indhaha caalamkuna ay ku soo jeedaan arrimahani gaar ahaan wadaxaajoodka u dhexeeya Tehran iyo Washington xagga Israa'iil telefishinka kanaal 13 ayaa waxa uu sheegay in wadahadal qadka telefoonka ku dhex maray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka JD Vance oo ahaa mid aad u kacsan iyadoo labada dhinac isku khilaafeen xaaladda ka taagan Lubnaan warbixintu waxay sheegtay in mas'uuliyiinta Maraykanku ay muujiyeen walaac ku saabsan hawlgallada militari ee Israa'iil ee Lubnaan iyo saamaynta ay ku yeelan karaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo xabad joojin iyo xasilooni gobolka Netanyahu ayaa dhankiisa ku adkaystay in Israa'iil ay sii wadi doonto tillaabooyin ay u aragto kuwa laga maarmaan ah waa sida dalka uu dhigay isagoo caawa hadal jeediyey Netanyahu waxa uu sheegay in mararka qaar ay jirto kala aragti duwanaansho isaga iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u dhaxaysa laakiin wuxuu ku adkaysanayaa
ilaalinta sida uu yiri danaha amniga Israa'iil. Netanyahu ayaa waxa kale oo uu tilmaamay inuusan si buuxda u ogeyn faahfaahinta heshiiska ay gaareen Washington iyo Tehran. Ha yeeshee wuxuu carabka ku adkeeyey in Iiraan aan loo ogolaan doonin inay samaysato hub nuclear ah. Waxaa farta ku fiiqay in heshiiska lala galay Iiraan uu yahay go'aan uu gaaray Trump, halka Israa'iil ay leedahay danaheeda gaarka, waxaana ka meermeeray inuu cambaareeyo heshiiskaasi. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay sii joogi doonaan waxa ugu yeeray aagga amniga koonfurta Lubnaan, isla markaasna ay sii wadi doonaan xorriyadda howlgallada military. Geesta kale, Netanyahu wuxuu ku dooday in weerarada Israa'iil ay ku qaaday Iiraan ay ka hortageen sida hadalka uu dhigay khatar nuclear oo uu sheegay inay halis ku ahaan lahayd jiritaanka Israa'iil. Waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay dhaawac weyn gaarsiiyeen sida hadalka uu dhigay barnaamijka gantaalada iyo nuclearka Iiraan. Sidoo kale, Netanyahu waxa uu ku nuuxsaday in Israa'iil dharbaaxooyin culus ay ku dhufatay sida uu yiri Xisbullah, isla markaasna aysan ogolaan doonin in kooxaha hubaysan ay saldhigya ka samaystaan xuduudaha Israa'iil. Waa hagaag. bal markan waxaynu u gudbaynaa war degdeg ah oo dhanka Mareykanka naga soo gaaraya. Waxaa la sheegayaa in ay dhacday diyaarad Mareykanku uu leeyahay oo ah diyaaradaha fuliyaha duqeymaha istiraatiijiga, iyadoo war hadda soo dhacayna uu sheegayo in diyaaradan oo nooceedu uu yahay B-52 ay gashay shil xilli ay maraysay gobolka California. waxaana la sheegay inaan si rasmi ah loo xaqiijin sababaha rasmiga ah ee diyaaradan burburkeeda keenay. uuro iyo qiiq ayaa hawada isqabsaday. diyaaradan B-52 oo duqeymaha culus fulisa ayaa qiimaheedu halkii xabo wuxuu yahay $84 milyan oo doolarka Mareykanka. faahfaahin rasmi ah lagama hayo khasaaraha ka dhashay shilka, xaaladda shaqaalihii saarnaa iyo sababta dhacdadan. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaana weli soo saarin war rasmi ah oo la xiriira burburka dayuuradan. waa tahay iminka waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. sheekadan waxaan idinkugu haynaa wax walba waa la tahriibiyey, laakiin waxaan idiin haynaa sheekada la sheegayo in la tahriibinayo hangaran leh ama dabaqolooc ama dibqolooc. dabcan siyaabo kala duwan baa loo kala yaqaanaa gobolada Soomaalida. haddaba sheekadan aynu eegne, booliiska Koonfur Afrika ayaa xiray nin 28 jir ah oo lagu eedeeyay inuu isku dayay in sifa sharci darro ah uu uga dhoofiyo 150 dabaqolooc ama hangarale, gaar ahaan kuwa sunta xambaarsan, garoonka dayuuradaha magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. sida ay sheegeen mas'uuliyiintu, ninka ayaa dabaqoloocyada nool ku qariyay dharkiisa iyo boorsooyinkiisa. xariga ninkan la xiray ayaa dhacay Jimcihii kadib howlgal baaritaan oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka, kuwaasi oo horay u helay xog ku saabsan dhaqdhaqaaqyadiisa. booliiska ayaa sheegay in ninka loo xiray ku xadgudubka qaanuunka ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta, maadaama sifa sharci darro ah uu u urursaday xayawaan duurjoog ah. magaciisa lama shaacin. waxaa la filayaa in maxkamad uu ka soo muuqan doono. dabaqolooca la qabtay ayaa loo wareejiyey xarun ku takhasustay ilaalinta duurjoogta si loo daryeelo loona qiimeeyo. tahriibinta xayawaanka duurjoogta ayaa weli caqabad ku ah Koonfur Afrika, weliba mid weyn oo ka mid ah dalalka ugu hodansan kala duwanaanshaha noolaha adduunka. yacni wax walba waa la tahriibiyey. waxaynu haynaa iyadoo laleeyahay waxaa la tahriibinayaa hangarale ama dabaqolooc. waa tahay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. aanad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. si aad ula socoto wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa, nabadgelyo.